duqa caasimada ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Injineer Yariso ayaa xafiiskiisa maanta ku qaabilay wafdi heer caalami ah oo ka socda dowladda Talyaaniga. safiirka dowladda Talyaaniga iyo Luciano Besotti oo amada xiriirka qaaradda Afrika u qaabilsan dowladda Talyaaniga ayaa fiisha ku feer maantay waxay ku soo booqdeen gudoomiyaha gobolka Banaadir iyagoo ka wada hadli doona arrimo mashaariic ah oo ay ka fulin doonaan magaalada Muqdisho. gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Injineer Yariso ayaa ka warbixiyay ujeedada ay maantay halkaan kula kulmeen wafdiga dowladda Talyaaniga ka socday. bismillaahi raxmaani raxiim. saa u jeedaan maanta waxaa xafiiska gobolka Banaadir nagu soo booqday Luciano Besotti oo ah ergey gaarka ah ee geeska Afrika ee dalka Talyaaniga oo maanta yimid dalka kulankiisii horeeyay inuu noqdo kulankii uu anaga maamulka gobolka nala yeeshay. waxaa kaloo la socda safiirka oo qanaan Carlo Campanile oo ah safiirka Talyaaniga u fadhiya Soomaaliya. sidoo kale waxaa la socda Guglielmo Giordano oo isagana aniga u qaabilsan arrimaha horumarinta dalka iyo muxuu ahaa wakiilka u qaabilsan arrimaha difaaca. runtii waxaan ka wada hadalnay arrimo fara badan oo ka mid tahay caasimadan Muqdisho iyo sidii horumarkeeda dalka Talyaaniga uga qayb qaadan lahaa. waxaan u sheegnay Talyaaniga iyo Soomaaliya inay taariikh hore ka dhaxaysay oo runtii hadda se moodo in wadamo kale ay aad Soomaaliya u caawinaan Talyaanigana arrintaas aad uga gaabiyeen loona baahan yahay inay dardar geliyaan. sidoo kale magaalada Muqdisho iyo magaalooyinkii Talyaaniga ee xiriirka lahaan jirayna in la soo celiyo. annaga waxaan caalamka ama Talyaanigana aad ugu xusnay in loo baahan yahay deeqaha Soomaaliya la siiyo in gobolka Banaadir iyo gobolka ugu dadka badan ugu caqabadaha badan oo 500,000 oo ay joogaan barakacyaal in loo baahan yahay dhaqaalaha ay Soomaaliya siiyaan in Muqdisho ay aad xoog u saaraan. haddii magaalada Muqdisho ay hagaagsan in waddanka dhan hagaagayo. waxaan aad uga mahadcelinayaa kulanka dheer aan wada qaadanay iyo sidii arrimaha uga wada hadalnay aan iskula afgaranay. marka mar kale waa u mahadcelinaa waana soo dhaweynaa. waa mahadsantiin. Luciano Besotti oo amada xiriirka qaaradda Afrika ee dowladda Talyaaniga u qaabilsan oo isna dhankiisa hadlay ayaa waxa uu tilmaamay inay sii horumarin doonaan gobolka Banaadir isla markaana mashaariic ay ka fulin doonaan. He already told you that we talk about our common cooperation, our common past, especially our common. We have discussed into some details, some for the future, especially for the city. Jobs for the young generation. Abdikariim Maxamuud Shidan, warbaahinta dowlad goboleedka Soomaalida Jubbaland, magaalada Muqdisho.